xafladan oo si weyn loo bilay loona qurxiyay ayaa waxaa ku qalin jabinayay boqolaal ardaya kuwaasoo dhameeyay heerarka kala duwan ee jaamacadda Ankara Yildirim Bayasiti University oo ku taala magaalada Ankara ee caasimadda waddanka Turkiga. Munaasabaddan ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga dalka Turkiga, madaxweynaha jaamacadda, waalidiinta ardayda dhashay iyo boqolaal dad kala duwan kuwaasoo ardayda la qaadanayay farxadda. Ardaydii Soomaaliyeed ee ka qalin jabiyay heerarka kala duwan ee jaamacadda ayaa u mahad celiyay waalidkooda iyo cid kastoo ka qayb qaadatay sidii ay heerkan waxbarasho u gaari lahaayeen. Magacaygu waa Aisha Maxamed. Magacaygu Faadimo Axmed Ali. Bakan Finance ka qalin jabin business faculty aan ahnay. Afar sano meeshaan wallahi aad iyo aad u faraxsanahay. Wadanka muddo badan aan joognay. Marka alxamdulillah Ilaahay qayb nagu soo dhameeyay. Marka idinkan aad iyo aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum. Magacaygu waa Faadimo Axmed Ali. Jaamacadda Yildirim Bayasiti oo Ankara ku taala ka qalin jabiyay. Waxaan u mahad celinayaa waalidkayga خاصة أنا أددي أو سكر سو محل هاي يد حول بيصبرت همبلي عن ليه يد ما نرددي إلى قرنشبينا وأمهد علم أنا أقدر نقول جوس أسلسو دجاجنا أو لبكي أو فرحد إسلاق بسنة كل جد همبلي هذا والد كي كانوا أمهد علنا نفتينا وأمهد علنا. السلام عليكم لما أنا صحبتها مجاعي جوا زبير وحكمي دايما تعرضت كقرنشبيسي أنكر يلدرم بيازيتي يونيفرسيتي قارهان كلية material engineering runtii aad u faraxsanahay waxaan halkan ugu mahad celinayaa dhammaan familkayga asxaabta kala duwan aan idin salaamayaa dhammaan reerda bahda Ankara. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Anoo niga salaamayna dalka Turkiga gaar ahaan magaalada Ankara anoo ka qalin jabinayna jaamacadda Yildirim Bayasiti University. Magacayga Umar Hussein anoo dhameeyay kulliyadda computer engineering anoo insha Allah rajaynaya ina cilmigu maxalumada Soomaaliyeed ku faafo ina anagu dhan horumar insha Allah sameeyno aad iyo aad waa faraxsanahay Ilaahay kadib waxa u mahadnaqayaa familygayga gaar ahaan hooyaday aad iyo aad u mahadsantiin. ugu dambeyntii halkaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha ururka ardayda Soomaaliyeed ee magaalada Ankara Zakariya Xasan isagoona farxadda la qaybsaday ardayda Soomaaliyeed. aniga oo ah gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata magaalada Ankara kuna hadlaya afka ardayda magaaladan wax ka barata waxa halkan maanta ka soo qayb galnay xaflad qalin jabina oo ardaydeena Soomaaliyeed heerkooda jaamacadaha kala duwan baajka masterka iyo PhD-da ku qalin jabinayeen xafladan waxa ka soo qayb galnay sida ardayda dhiirgelin iyo garab ugu noqono maalintooda فرحدت استاهلان مادام جهد بدن أصاب بحين دلكان قربها إن شاء الله إيجانا وحاول رجينا علمي برتين كوي أو دلكو ذي نفس دودو كانفع إنه إلهي كديك إن شاء الله.